صاحب هذا بيجك كعصب تحي نديريجي وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إلى مهدى من إسكالين ما أنت وحن قادنا قيبتي اللباد كسابسا علف كعبارا عرلاان تلبيرو هيد ربونك فودر وقيبتي اللباد ما أنت وحن قادنا دون هدي الله وحي ما سامين تقوله إني يقولي ستو دالا شرع إني وحن لجينا مريح اللبيريو هيد ربونك فودر كالبيريو سيدا قليلة مسجرة واندها قمدية إيو وحي اللمدة مركا إني yuhu soo dhalanayaan waxay u baahan yihiin dhowr shardi oo la xiriira iniyaha laftooda iyo deegaankooda. Shardiga koowaad waa qoyaan ama biyo. Biyuhu waxay ka mid yihiin caawiyaasha ugu muhiimsan ee soo dhalashada iniyaha. Iniyuhu waxay nuugi karaan in ka badan 6% miisaankooda oo biyo ah inta ayna bilaabin soo dhalashada. Qoyaanka saa'idka ah wuxuu qurmiyaa iniyaha mana soo dhalanayaan sababtuna waa oksijiinta oo uu ka xirayo. Oksijiinta waa shardiga urjiifka ama embriyooda ku kaysan iniinta qalalan wuxuu u neefsadaa si aad gaabis u ah wuxuu xoog u neefsadaa marka iniinta la geliyo shuruudaha soo dhalashada. Oksijiintu waxay lagama maarmaan u tahay noolaha waxayna ka mid tahay caawiyaasha xadeynaya soo dhalashada iniyaha la'aanteedana ma biqlayaan ama ma soo dhalanayaan iniyo. Oksijiintu waxay ku milantaa biyaha waxayna gashaa unugyada milmidda oksijiinta waxaa saameyn ku leh heerkulka oo marka uu siyaado waxaa yaraada oksijiinta ku milmaysa biyaha. Waxaa lagu talinayaa in muddada biyo la dhigidda ayna ka badan 4 ilaa 6 saac. Taa macnaheedu waxay tahay iniyaha marka la beerayo si iniyaha loo jilciyo waxaa lagu dhigaa biyo muddo inta aan saxanka lagu fidinin ka hor. Iniyaha markaa muddada lagu dhigo biyaha wayna ka badan 4 ilaa 6 saac. Hadday iniyuhu adag yihiin sida galleyda oo kale oo muddo dheer u baahan yihiinna waa 4 saac ama ugu dhammaan 6 saacba waa in mar biyaha laga bedelaa isla markaana la walaaqaa. Shardiga saddexaad waa heerkul. Heerkulku wuxuu lama huraan u yahay dhalashada iniyaha. Nooc walba oo iniyaha ka midana wuxuu leeyahay heerkul u gaar ah oo uu u adkaysan karo. Waxaa halkan idinkula wadaagayaa heerkullada dalagyada qaarkood adkaysan karahayaan. Haddii aan ka bilowno baasha la yidhaahdo shaciirta ama barley heerkulka ugu hooseeya waa 3 ilaa 5 degree centigrade. Heerkulka ugu habboon 19 ilaa 27. Heerkulka ugu sarreeya 30 ilaa 40. qamadi waa 3 ilaa 5 heerkulka ugu hooseeya. Heerkulka ugu habboon 15 ilaa 31. Heerkulka ugu sarreeyana 30 ilaa 43. masagada iyo galleyda heerkulka ugu hooseeya waa 8 ilaa 10 degree centigrade halka heerkulka ugu fiican oo ugu habboon uu yahay 32 ilaa 35 halka heerkulka ugu sarreeya uu ka yahay 40 ilaa 45. bariiska heerkulka ugu hooseeya waa 10 ilaa 12 kan ugu habboonna 30 ilaa 37 kan ugu sarreeyana waa 40 ilaa 42. shoofaanka ama ootiska waa nooc qamadiga ka mid ah asaga heerkulka ugu hooseeya waa 3 ilaa 5 kan ugu habboonna 35 ilaa 25 ilaa 31 halka uu ka noqonayo heerkulka ugu sarreeyo 30 ilaa 40. shardiga afraad waa biseylka iniyaha. iniyaha bislaaday way ka dhalan og yihiin kuwa aan si fiican u bislaanin. biyaha iniyaha ku jira waa inayna ka badanin 12%. haddii kale waxaa ku dhalanaya fangi iniyuhuna way halaabahayaan. macnaha ula jeedna waa iniyaha in si fiican loo qalajiyo ka hor inta aan la kaydinin. iniyuhu waa inay ka gudbaan marxaladda loo yaqaan dhalasho la'aanta. marxaladda dhalasho la'aanta oo loo yaqaan dormancy phase waa in la sugo iniyaha muddo ka hor inta aan la abuurin. tijaabo la sameeyey waxaa la abuuray shaciir ama barley mar uu soo go'day 7 ilaa 10 beri ka hor. waxaa la arkay in soo dhalashadeedu ay aad u hooseyso halka tii muddo ka hor la soo gooyey markii la abuuray ay si fiican u soo dhalatay. sababta ugu wacanna waxay tahay midda hore waxay ku jirtaa marxaladda soo dhalasho la'aanta ee loo yaqaan dormancy phase. kaydka cuntada nin walba waxaa allah ugu talagalay kayd cunto ay u baahan tahay inta ay ku jirto marxaladda soo dhalashada ilaa ay ka yeelanaysa caleemo. intaa kadibna caleemaha ayaa cuntada u samayn doona. iniyuhu way ku kala duwan yihiin xaddiga cuntada ah ee ku kaydsan. iniyaha hodanka ku ah kaydkooda cuntada dhaqso ayay u soo dhashaan marka loo eego kuwa faqiirka ah aan kayd cunto badan lahayn. shardiga lixaad waa da'da iniyaha. iniyaha cusub ee dhowaan soo go'ay markay ka gudbaan xilliga dhalasho la'aanta loo yaqaano dormancy phase way u yihiin iniyaha duuga ah ama bakaarta galay.
haddana waxaan u gudbaynaa sumaha fangiga ee ku dhasha iniyaha la daqlinayo, macnaha iniyaha lasoo dhalinayo oo la doonayo in hydropolis fodar laga sameeyo. Suma ayaa ku dhasha, sababtuna waxaa weeyaan shuruudihii uu fangigu u baahnaa oo dhan ayaa meesha ka jira. shuruudahaas ay ka mid yihiin qoyaanka, 2 heerkulka, 3 cuntadii. maadaama ay sidaas tahay marka waa in laga taxadiraa. khatarta ugu weyn ee ay wajahayaan dadka ka shaqeeya beeridda calafka cagaaran ee carro la-aanta la beero waa fangiga. iniyaha la daqliyey ee fangigu ku dhashay waxay keeni karaan jiro iyo dhimasho ku timaada xoolaha la siiyey calafka cagaaran. sumaha fangiga, in badan oo fangiyada ka mid ah waxay sii daayaan sumo loo yaqaano mycotoxin, kuwaas oo sababa inay ka soo ifbaxaan dadka iyo xayawaankaba calaamadaha sumoobidda. sumaha fangiga waxaa ka mid ah sunta loo yaqaano aflatoxin, waa mid ka mid ah sumaha fangiyadu ay soo deeyaan. waxyeeladooda waxaa ka mid ah waxay keentaa kansarka ku dhaca beerka, waxay waxyeelaysaa neefsashada, waxay keentay xaalado dhimasho wadareed oo ka dhacay waqooyiga Indiya, Kenya iyo waqooyiga Masar. sumaha fangiga waxaa kaloo ka mid ah sunta loo yaqaano alkaloid ergot. suntan waxaa sii daaya fangiga loo yaqaano Borrelia, waxaana ku sumooba xoolaha marka ay cunaan miraha xambaarsan fangiga, waxaana suuragal ah inay ka muuqdaan calaamadaha sumoobidda oo kala duwan. waxaa kale oo jira sumo kale oo badan oo fangigu keeno, waxaana waajib ah in aad looga taxadaro iyada oo la qaadayo tallaabooyin kala duwan, sida in iniyaha la doonayo hydropolis fodarka in lagu beero si wanaagsan loo dhaqo iyadoo la isticmaalayo jeermis dile waxtar ah sida chlorine-ka, hydrogen peroxide-ka iyo waxyaabaha u dhigma. xataa waxaa la isticmaali karaa milixda oo biyo milix fiican lagu qasay si fiican haddii loogu dhaqo booskooda way geli kartaa. 2 waa in saxamada lagu daqlinayo ama lagu dhalinayo iniyaha loo sameeyo duleelo biyaha dheeraadka ay ka baxaan. sidoo kale waa in loo dhigaa qaab janjeer ah ama slope, waa in loo sameeyo suuro gelinaya in biyuhu ka dhammaadaan. saxamada kore biyaha ka yimaada waa in laga ilaaliyaa saxamada hoose si aynan saameyn xun ugu yeelanin. sumaha fangiyada waxaan usoo hadal qaadnay inaan ku baraarujino xoola dhaqatada khatarteeda. sumaha ay fangiyadu sii daayaan waxay u keeni karaan dadka iyo xoolaha waxyeelo gaaraysa ilaa dhimasho. xalaqadeena maanta intaasay ku eg tahay. aadan ku mahadcelinaya dhegaysigiina. waxaan rajaynayaa haddii aad wax ka faa'iiday inaadan hilmaamin inaad like tiraahdid, haddaad naga cusubtayn inaad tiraahdid subscribe, lana wadaagtid asxaabta kale. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.